أدي وحنا يسوي دعانة تري لكن أنا ما لي يدينا نقرأني من فرح ماذا عيله ذا بحب البرر نروح الحلي كدوبيه قبل كحسب كلمية يلا بحل بال لما الحل بال يلا حلي شرع لي على الشرع يعس كذا ما تشيلو شرع لي على الشرع يعس كذا ما تشيلو وفوض يمر قيا حوجة واحد أنا قلنا كلام أنا قلنا نقول درع ده حوج استعمال لسان كلام أنا قلنا راعية مش اللوري أول الكلام تدبب أو ديري هذه كلام يا دق تحريدون هالوسع عليه والله أرجع وح عقلي أقشقين سلمت لي الحمد لله أنا ورتلو علك توج ورتلو علك توج رالو وسوتشوجي هذيك الله تقول أرجع شرعية كتلبسته تخيل أنا قلنا حين صدرنا بليس والراعي وإحنا مش كل ضب له نبقى أنا قلنا بها يصير وكستون الجرين مركها هالك اللي يسكسر حياة هالك هيتاي حلا دبوا صفير صد أفير صد أرمانا كلاموي كلا قاعد يسال دبوا قفير صد خير بسوا سداني وحبت سنة وحبال بين ذهب لي حبت سنة وحبال بين ذهب هذا وحدوري يهدد سيسيو وأيام درو وحلا لك كذا قلت اللابدا وانا كمتشلو سموه كمتشلو دنت قرب كمتشلتو دنت شعبك سوماليا كمتشلتو حوق الاستعمال يعيد المقاتشيو كداي يالنا كداي وسع عليه هذا شرعي ودان والشرعي كهذا ليسان ودستور كده الكوي على احترام يسان وشروع لدى الكوي على احترام يسان حنا أنا ما يدار حنا وحوي هو شرعي الأوحى تلمام يسان وفوضه بالحياة حلا يوم دي كدورتي كامل جيدو شعبكي كدورتي كامل جيدو يتفوضه ورسيدو دي بقول لكم دي بسقول لكم تلاوي كلوا تلاوي الأرض خلدر وحال مرة بعد ليه شرعيتها الاحترام شرعي وحلوية شرعي المدحوينون وقتها شرعي نكوا قوصلنا المدحوين من هذا شرعي بقى أمر قاضنا أقول داقتها كتور الشرعية أقول داقتها كتور الشرعية شرع على شرع بنين يحل ولا راح يحلك ما تشيلوا وحي شرع الدراء هاينو أي ساعات استيش لقول شرانا ما تشرتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الدرع لما أنا كنت في صوتك صوت ناس إن شاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سأو شيء أنا بدومية قالوا ده حسبية جامعة شباب وحسوس هذا يمكن مدة 4 عشاء إن قبل كساحل قارهان عاصمة ديس دقمة بربرة 2 شهر إن لشكدين شاء الله يبغى ولا حد حلبان هذا مدة ساعة إحنا يعني يقدميه لكن واحد يقول يكون برمائسة بريبا ليدنا وقلانا يا إلى تاجرتان مش رح نمدا قدومية حسبك ما أنتنا يمكن حي حريهن
waa asbaabtaas horena waanu sheegayo wali lama gaadhin dalkan halkii la doonayay inuu gaadho waa tallaabooyin horu socda shalay waxaan maqlaynay in xukuumaddu tiri waxaan ogol lahay wada xaajood iyo dhexdhexaadin maantana waxaad arkaysaan tallaabadan la qaadayo waxaad arkaysaan xubnihii dawladda ka tirsanaa ee la magacaabay ee guddida fulinta ahaa in ilaa xalay la shirayay waxaad ka warhaysaan in agaasimayaashii beelaha ilaa xalay la shirinayay waxaasoo dhan waxay noo muujinayaan inaanay diyaar loo ahayn sidaan hore idinku sheegay dalkan inuu nabadgelyo sii ahaado in lagu wada noolaado in la isqanciyo iyo in la isdoorto labadaba marka aad iyo aad baan horta u cambaaraynaynaa xadhigaa foosha xun leh xildhibaanadu waxay leeyihiin constituency bay leeyihiin immunity bay leeyihiin dhowrsanaan bay leeyihiin maanta ninka xildhibaan xidhay waxa u reeban u hadhay aanu ma garan karno waxa weeyaan sidii siyaad baraynu kaarayaal inuu malka durduro Hargeysa in la sameeyo baa inoo hadho dadka la laayo qodobkaas ma malaynay inuu xigi doonto insha Allah hadda la ka dhigo marka waxaanu leenahay sharciyada iyo dastuurka hala dhowro ninka ma xoog roona hadii xoog noqoto raga maanta xidhaya xildhibaanada xidhaya wallahi inaan Hargeysa iman karin haday sharcigu meesha ka baxo inaan iman karin ma laakiin sharci baan ku dhaqannaa sharciga hadii la dhowr waayana tafool xumaa iman doonta rag bay kaarayaan soo kaxayn doonaan hadii joojin waayaan waxa ay imka wadaan Hargeysa ku iman doona kaarayaan waa ballan wardin qaadayna hadoo la ka dhigo hadii joojin waayaan marka waxaan leenahay war sharciyada hala dhowro qofku wuxuu ku yahay madaxweyne waa xeer iyo sharci qofku wuxuu xildhibaan ku yahay waa xeer iyo sharci qofku wuxuu wasiir ku yahay waa xeer iyo sharci qofku wuxuu gudoomiye ku yahay waa xeer iyo sharci hadii la dhowr waayo lama kala xoog roona marka waxaan leenahay nimankaas si degdeg ah loo sii daayo hadii la sii deyn waayana waxa weyn sharciyada dalka waa la laabay anaguna dhinacayga aan laabi doonaa insha Allah hadda la ka dhigo waan mahadsantii wasiir magacayga Khadar Cali Xuseen shina ku magac leedahay waxaan ka soo shaqeeyay wararka ku maamulka online ah